أنا مانتي إن رنتي إن شاء الله إن رنت شغلنا وأمر الله سبحانه وتعالى ونفريه إلهي القرآن كسوح كل هي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا كور رنت شاغ رنت وناقي كفرتا وناقنا جنة بوقية مركان سيدا سلايا هي وحرمتي مسؤولية اسكسارين إنا صدير اندريو ور أنه كما قلنا أما أنه كارقنا براها بالشدة كاسو كساب سنة قبر لو سoo bandhigay magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug qaybta Galmudug taasoo lagu sheegay inay hubaysnayd taasoo lagu sheegay in la soo dacweeyay taasoo lagu sheegay in lagu raad joogay iyadina ay sheegtay inay ahayd qof magaalada degan la yaqaano mehradna kule inta aan u gudbin xaqiiqdu waxa ay tahay waxaan rabaa maanta inaan ka codsado bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan marka koobaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay weydiisataan cafis sababtuna waxa weeye waxaad baafiseen ama faafiseen war been aha Ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تذكى الله إيه نبي رمييه هدو دين هذا ور قبر هدو دين هذا وبين فتبينوا اسكهوا بيه وحرجيني يا مركة إن إلهي سبحانه وتعالى عفز ويدي ستان إن ويدي ستان سيدوك لا عفز كي يقف كي دنبك لغاقلي المحبوس كلام ما أنت أثناء إن عفز ويدي ستان أنا مركان أركي information كا مركان دقيستي لبد sentences أما لبد قراه وإنكي بوليس كها ويري وحن مسؤولية داس أنا ويستاري إن البارتان سمعيه وحي وقص ببارتان كاس وحكو كاها markii ninkii booliska ahaa uu yiri gabadha waa la soo dacweeyay hadalkiisa ku xigay muxuu ahaa waynu ku raad joognay ayadan waxay tiri meherad baan ku leeyahay magaalada ummadda Soomaaliyeed baan waxa weydiinayaa waxaan u daynayaa jawaabta qof la soo dacweeyay sidee loogu raad joogay lana yaqaano meesha uu degan yahay aan ahayn qof macnaha waxay ku tusinaysaa waxay cadeynaysaa taas waxyaabaha soo socda gabadha waxa la yiraahdaa deeqo waxay ka soo jeedaa caawid waa haddii qabiil ahaan loo hadlana waa marixaan ugu gardhaa deeqo waxay deganeyd magaalada Gaalkacyo in ka badan 8 sano deeqo waxay ka shaqaysan jirtay magaalada laakiin xaqiiqdu waxay tahay markaan la xiriiray ehelkeeda oo jooga gudaha iyo dalkaba aadiyadaba waxay xaqiijiyeen deeqa in xanuunsan tahay waxaan si dhab ah uga codsan lahaa dadka gacanta ku haya in ay deeqa xorriyadeeda hesho inay deeqa tahay qof dhimirka la inay tahay qof daawo qaadata waxaan isleeyahay intaasba markaan leeyahay waa wax qofka Soomaaliga markuu sawirkeeda arko uu dareemayo qofkaan qof caafimaad qaba inuusan ahayn qofkaan qof xanuunsan inuu yahay laakiin se markaad aragtid sida ay u dhaqmeeyay si loo soo gudbiyay macluumaadka walibana loo keenay baraha bulshada waxaan isleeyahay anshaxa booliska anshaxa baaritaanka anshaxa ummadda Soomaaliyeed waa ka soo horjeeda waxay ahayd gabar qaawan in la soo dhigay oo diiniyan ah wax qalad ah sidoo kale waxa ka xumahay in la soo dhigay macluumaad kale oo ay xaaraanahay in bulshada loo soo bandhigo qofka in la soo qabtay in la soo eedeeyay bulshada waa la horkeeni karaa laakiin cadeymaha waxa lagu soo qabtay waxay ahayd maxkamad in la sugo maxkamad lama sugin baraha bulshada la soo dhigay taas waxay ku tusinaysaa gabadhaan inay taargad ahayd saas waxa weeyay taargad u tahay gabadhaan yaa saahaysta maanta sidaan sheegay gabadhu waa reecaabud waa qoon marixaan waxa lagu haystaa koonfurta Gaalkacyo waxaana haysa shakhsiyaad u dhashay beesha saacad
markaan sidaas leeyahay waa xaqiiq danta laga leeyahay maxay tahay marka laba danood baa laga lahaa gabadhan midda koowaad waxa weeye arrimo hore u dhacay una dhaxeeyay shakhsiyaad ay business wada lahaayeen in ay isku dhaceen midda labaad oo inta badan loo badinayo waxa weeye in waxa ka dhacaya galmudug kuna saabsan hoggaanka galmudug iyo hoggaanka dowladda federaalka ah lagu murmay sidaas daraaddeedna la isku ciqaabayo waxaan u soo jeedinayaa dadka gacanta ay ugu jirto gabadhaas inay hesho xorriyaddeeda sida ugu dhaqsiyaha badanna u hesho waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dowladda federaalka maamulka galmudug taliska ciidanka booliska soomaaliyeed wasaaradaha arrimaha gudaha both federaal iyo galmudugba in ay hesho gabadhan xaquuqdeedii si caafimaadkeeda loo sii wado si isbitaal loo geeyo gabadhan waa inay xorriyaddeeda hesho waxaan markasta qirayaa gabadhani waxaa lagu haysta inay tahay qabiil waxay u afduuban tahayna inay tahay qabiil waxaan runtii waxa laga xumaada ah in baraha bulshada lasoo dhigayo gabadhan shabaab bay ahayd marka koobaad shabaab lama shaqeeyaan qof dhimir kala marka labaad shabaab lama shaqeeyaan qof timu u jaran yihiin gabadhan waa gabar xanuunsan waa gabar u baahan medical attention waa gabar u baahan sida ugu dhaqsiyaha badan inay xorriyadooda hesho waa codsi aan ka wado faamilkii ay ka dhalatay gabadhan oo runtii u arka keliya maaha ayaga u arka inay u afduuban tahay qabiil waxaan ugu baaqayaa beesha hadda gacantooda ay ku jirta ee sacad oo aniga reer awoogay ah inay gabadhaas hesho xorriyaddeeda reer awoogay waxaa naga dhexeeyey inaynu ragga iska layno laakiinse marnaba dhaqankeena kama mid ahayn inaynu dumarka iska afduubanno ma aha taariikh wanaagsan ma aha taariikh aynu rabno inaynu galno ma aha taariikh ku dayasho mudan waxaan ka codsan lahaa beesha sacaad oo gabadha gacanta hadda ay ugu jirto in ay la hadlaan nimanka maanta rabaa inay dhahaan shabaab bay u shaqaynaysa sidaasna lacagta rabaa inay ku raadsadaan laakiinse mid baan maanta caddaynaya anigoo u hadlaya afka dadka gabadhaas ay ka soo jeedo deegaan ahaan iyo qabiil ahaanba haddii aysan gabadhaas haynin xorriyaddeeda waxaa ka baqayaa kana cabsi qabaa in muwaadiniin kale oo soomaaliyeed oo waxa dembi aan gelin sideeda suuqyada laga qabsado ma aha waxaan rabno ma aha waxaynu dhiiragelinayno laakiinse waa wax laga fursan waayo haddii ay dhacdo beri